تبينتا مانتا waxay ka bilowmaysaa garoonka diyaaradaha ee Garowe garoonka diyaaradaha ee Garowe bay ka bilowmaysaa maanta garoonka diyaaradaha ee Garowe bay ka bilowmaysaa tibinta saaka halkan aan ka bilaabayno waa soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo soo dhaweynta Sheekh Shariif Sheekh Axmed hore madaxweyne oo soo noqday soo dhaweynta ra'iisul wasaare Ali Maxamed Geedi oo hore ra'iisul wasaare oo soo noqday iyo siyaasiyiin kale garoonka diyaaradaha ee Garowe taariikh kala isqoraysa madaxweyne Farmaajo markii labaad buu imanayaa isagoo madaxweynaha waayahay oo jeedaan dadka dhalinyarada iyo baan halka jooga haye dareenkiinu sayahay maanta walaal maanta aad baan faraxsanahay waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo oo hadda bishii Janaayo asaas ka taa ugu soo dhaweynay caasimadda Puntland ee Soomaaliya waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan maanta u soo istaagnay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha hore madaxweynaha hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed Ali Maxamed Geedi oo rasaar ka soo noqday wadaas waan ku faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyno aan garoonka u taaganahay ayaga waan soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhawaada Garowe ku soo dhawaada dhalinyaradiina ku soo dhaweeyna dadkiina maanta aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha Soomaaliya inuu naga soo qayb galo xafladda cali masaarka madaxweynaha Puntland taariikhdu isqoraysa insha Allah waxaan rajaynayaa baaqna oo u diraya in maanta noqon doonto tii lagu heshiin lahaa tii Soomaaliya ku midoobi lahayd tii horumar lagu gaari lahaa waaye aad baa maasan tahay daawadayaal ayee waa u jeedaa gabdhaha calanka Puntland ku labisan ayee adeer magaca ياسمين هي انت سنه جرتا 3 سنه جير واتاي ما شاء الله عانكي بودلاند با maanta ku labisan tahay iyo caankii Soomaaliya sidee dareenkaagu dareenkii aad iyo aad u weyn waxaan ku faraxsanahay anigoo soo dhaweynaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhawo Puntland Soomaaliya ما شاء الله ku soo dhawo Puntland Soomaaliya bay tiri ma sha Allah aad ma maasatay adeer waa gabar yar oo 13 jir oo reer Garowe oo calanka Soomaaliya xiran waayahay tabinta maanta halkan ayaan ka bilaabaynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikh gal u dhigaya isagoo madaxweynaha ayuu markii labaad imanaya Garowe haye dareenkaagu sayahay maanta ما شاء الله waa gartay calankii ku soo wada labisatay calanka Soomaaliya haye dareenkaagu sayahay maanta haye waan ku faraxsanahay madaxweynaha maanta soo booqanaya ما شاء الله madaxweyne Farmaajo markii labaad buu Garowe imanaya isagoo madaxweynaha taariikh kale ayuu dhigaya waayahay waayahay dareenkaagu sayahay maanta أنا قدومية حافظ أولاً عبد الرحمن محمد عثمان ما أنت درين كجرو عاد شعب فرحسن مدحوينا هنا كسودوينا ربعنا هاي قرون كنا كسودينه درين كيناد وفرحسن عاد وما ستين ولا المقعد محمود رئيس أبشر الشراء دوري حافظ دوابر عاد فرحسن ما دا وصار مدحوينا قرن كصوماليا سودو دولك هاي كسودو عاصمة قرن عاد فرحسن تاريخ دو أيضا يسقريسا حدنا madaxweyne Farmaajo waa garanay markii labaad buu imanaya Puntland isagoo madaxweynaha ciidamada Bambeyda ee qaraaca halkan ay joogaan waxay soo jiraan diyaar garowga ugu dambeeyay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ciidamada Bambeyda ayaan la kulanay soo dhaweyntii ugu dambeysay diyaar garowga ugu dambeeyay ay ku jiraan madaxweyne Farmaajo maalintii labaad ayuu taariikh dhigaya oo markii koowaad isagoo madaxweynaha imanaya Puntland waaya alaabtii wataan qalabkooda ciidamadu waa diyaar garow Bambeyda salaanti ciidamada sida u qaadan lahaayeen waayahay waa sugeynaa waxaan noo soo bandhigtaan waa idiga sugeynaa waxaan idiga baranay waayahay ciidamada qaranka oo salaan isu diyaarinaya ciidamada Soomaaliyeed oo salaan isu diyaarinaya ciidamada Puntland oo salaan isu diyaarinaya waayahay ما شاء الله ديار قريب دبي عيدة مدو كوشيران مدحوينها صوماليا مدحوين محمد عبد الله فرماجو مركي لباد ببنتلاني من يسوق مدحوينها تاريخ كلا أيو قرية وحسود دوين يا مقام سر كسود دوين يا مدح مامور الله الدلكة وهو قامين يا مدحوينها عصب سعيد عبد الله الدني وقتكم محونا ليه وقتكم محونا الشيء ساعدوا محينا ورانيسا قروا محينا ليه ذا هيمانتا قرون كم محانكو أركيدونا انت بهالكنا يدخل صعون دونتان دبراني ميديا مرول بقى ميل كستا وايه garoonku waa soo buuxsamay madaxweynaha awli diyaaraddiisa soo kicinaya u jeedaan haddana garoonkii Garowe inuu buuxo oo dadku ay soo badanayaan safaf dhaadheer ayaa lagu jiraa waaye oo Soomaaliyeed oo Soomaaliya halkan
madaxa ku qortay ayaa joogta waa garanay haye nadar dhabarka maxaa ku soo qortay calanka Puntland ayay gabadhan ku soo qortay dhabarka haye dareenka u seeyo maanta ما شاء الله لما سو كوبي كرو haye فيست تايم أعرف على ده فرماجة haye markii koowaad miya ها oo sanadkii hore xagaa jirtay ما تشوف ايوه waa markii labaad oo madaxweynuhu imanayo see u aragtaa ما شاء الله ويلكم ما شاء الله aad ma maasanta haye ciidamada qalabka sida waa joogaan waa garan kooxaha hidda iyo dhaqanka halkan ay fadhiyaan gabdhi yaryarka waa kuwaan qurquruxda badnaa haye adeer magaca style meel u yiraahdaa hadda waa u jeedaan calanka Soomaaliya calanka Puntland ayo yaa soo dhaweynaysa adeer madaxweyne farmaajo ما شاء الله ما شاء الله ايوه هذا maxaa oranaysaa markuu yimaado madaxweynuhu haye maxaa oranaysaa balgeeraarka lama noo sheeg سرايا مدحوينه مدحشا ويستغني Soomaalida Puntland inta isku soo kala soocnay salaana galbeys waxsan saarna ما شاء الله ما شاء الله naga gudoon bay tiri waa garanay ujeedaa heesaha iyo halkudhigyada caanka ay soo gudbinayaan dadku waa yahay ujeedaa gabdhahan calanka Soomaaliya calanka Puntland ay soo labisteen madaxweynahooda oo weli ka soo dhoofin Muqdisho ay sugayaan madaxweyne farmaajo markii labaad buu imanaya Puntland taariikh kale ayaa isqoraysa socdaalkii nabadda waxa ku xiga socdaalka caleemasaarka dani waaye ay u fiiriyaan macnaha mustaqbalka Soomaalida oo ay eegaaneen ayaan rajaynaynaa waxa ay kaga duwan tahay mar kasta annagu kalsooniyo wanaag baan ku soo dhaweynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeye niyad iyo wanaag baan ku soo dhaweynaynaa sida wanaagsan uu Soomaaliya uga dhigay waxyaabaha ku taageersatay waxaan ku taageersanahay Soomaaliya buu Soomaaliya kale Soomaaliya aan laqoon buu Soomaaliya dhali waxaan u dirayaa madaxweynaha waxaan u dirayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne waxaan balyo la dirayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa weeye Soomaaliya la kaga annaga waa taageersanahay kaliya laaba ma ku taageersanahay quraan buriyar baa halka soo jeedinaya محمد عبد الله مدحوينه دلكو محمد عبد الله مدحوينه دلكو محمد عبد الله مدحوينه دلكو
أيوة ياي محمد سعاح أو SBC كتير سنة يا وريسنا يي أدبو ما سيهاي وايهاي هذا العالم كم حاول سوق قاتين هذا وجهك قبصنا إنسان وايه هاي قدها سيا وحي كغبك يهين سو دوينتا وسعتها ها هي يا سو دوين سمانتا ما شاء الله ما شاء الله سو دوينتا وسعتها الى هاتن غير قروي way soo baxeen madaxweynaha muqdisho ka soo dhoofinayay garoonka soo buuxiyeen waayahay gabdhaha dalka cadda waxa waaye waa garnay soo dhaweynta ka qayb qaadanayaan ardayda caafimaadka waraay gaadiidka xitaa ma ka qayb qaadanayaan waayahay dabaraani miidiya aad baa u mahadsantihiin dadka nala socda meel walba aad joogtaan sida aad noogu xiran tihiin sida aad noola wadaagtaan halkan gabadh baa buraanbur ku tuuraysaan u malaynaya bal sugaan ka gaaray aniguna aan idiin geeyay bal sugaan idigu qabtay idiga dhaweeyay iga haye bismillaahi rahmaani rahiim magacaygu waa Firsan Cali Jaamac halkan waxaan ku suganaa maanta airboorkeena oo waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaheena federaalka Soomaaliya oo magaciisu yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galaya caleemisaarka dawladda cusub ee noo dhalatay dani on loo doortay dawladda cusub insha Allah waaye gabadhii taas oo qaatay كتور ورودي قبنا أنا فريد قبنا ورما هندسة وهي soo dhaweyntu way socotaa 1600 qof ayaa halkan jooga waxay ka qayb qaadanayaan soo dhaweynta waraaye maxaa haysa maxaa oranaysa 1600 qof daawanaysa warkaale xaq oo soo jeesto inkaan reer garow ma garanaysaan saaxiibada aye ku dar dareenka ku dar walaal ilaa intee ka xasan yahay gabadhaan aad buu soo dhaweynaysa waa garanay waayahay هذا كوني كل حق قلب داوني صراحة ويا سو دوينتا أيام ولي سفي عنو بلابن وهي هاي سو دوينتا أيام صعوتا قبلها عنك بعد صوت شدي صور كصوت شدي دين عكر صور كباي أصورنا مدحينا حقيقيس dadku laabtay ku soo qorteen waayay madaxweynaha maxaa u qarisay ku darso dareenka ku darso maxaa leedahay maanta madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo waayahay dadkaas weyn waa dadka qaybtoodii kale oo imanaysa
ayaan sugaynaa qaybaha kala duwan haye ku dar Siciid maxaa leedahay maanta maxaa waraysaa Siciid halkan waxaan u joognaa inaan soo gudbino wararka la xiriira soo dhaweynta madaxda sare ee dowladda federaalka madaxweynuhu waa garan saacadaha soo socda halka laga sugayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ah hormuudka ugu weyn ee wafdiga ka imaanaya ama calaamasaarkan imaanaya oo ujeedada dadku way soo bilowday ilaa saaka ana waxaan nimid booliis oo halkan nimid ilaa iyo intuu ka imaanayo oo 12 ilaa 14 sugaynaa halkan gudoomiye caata gudoomiye aye دبراني ميديا وي كون iyo 700 qof ku daawanaysa gudoomiye caato gudoomiyaha degmada gobolka Karkaan ayaa hadda ku soo biiray wuxuu soo dhaweynaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horena dabcan xaq ugu soo dhaweeyay qarba dareenka uu seeyahay aad baa dareenkaygu u fiican yahay farxad weyn baan ugu jirtaa waxaan dareemaynaa Soomaali weyn oo midowday oo meel isugu timi oo aayaheeda ka tashatay dal iyo dibadba hal midaan la wada noqday ummadda Soomaaliyeed ee tabaalaysan oo arxantay isna bedeshay xaaladii ay ku jirtay 30 sano ka wareegtay una wareegtay horumar midnimo iyo qarannimo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan aad iyo aad baa maansantahay caato gudoomiyaha waxa weeye gobolka Karkaan madaxda Puntland halkan ayay isugu imanayaan reer Garowe halkan ayay isugu imanayaan shacabku halkan ayay imanayaan madaxda maamulka goboleedada ee jooga Garowe halkan ayay imanayaan qof walba halkan ayuu joogayaa inta uu degayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waaya maalin kale oo taariikhi ah maalin kale oo waqtigeeda leh maalin kale oo halkan magac fiican uu sameysmayo maalin kale oo isu imanayaan hogaamiyaan kala aragti duwan maalin kale oo ay rabaan inay dadku isarkaan dadku halkan ku kulmaan iyagoo kala fikir duwan qaybtoodna ay ka midaysan yihiin oo kaliya soo dhaweynta madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi anagu waxaan qoraynaa waxaan aragnaa waxaan sheegaynaa waxaan ku gudbinaynaa waxa dhacaya laakiin qof walba wuxuu joogaa meesha uu ka hadlayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdigiisa wali ma soo guurin dhoofin garoonka Muqdisho wali kama soo bixin laakiin waxa soo baxay wufuudu hogaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wufuudu hogaaminaya ayaa soo socota laakiin garoonkii ayaa la sii buuxiyay madaxweynihii oo iman jacaylka iyo farxadda iyo wanaaga halkan yaala darteed taariikh kale ayay sameynayaan reer Garowe magac kale ayay qori doonaan waqtigiisa wax kale ayay nagu soo kordhin doonaan laakiin waan sugaynaa ma sida ay wax u dhacaan iyo Dabarani Media ayaa toosa waa garan qaybta kale loo soo raray taageerayaashii waa la ururinayaa waa la safayaa taageerayaasha ayaa la safayaa hadda وايه taageerayaasha ayaa la safayaa war maxaad tirahdeen وايه عادوا ما ستين أيه محاتري نو قطر هستاح تلفت كده ماذا حوينه هنو فرماجو مرتدي لسعطة صادوا عنده حلقة وتاقنا يسودوا وينك مدحوينها صوماليا قرنك صوماليا عبد الله محمد فرماجو مدحوين سودوا ووالين هاي الله وماشي كل يوم مدحوينه مركو يمانيو شعب كذا واي مدحوينها الصومالية لسو دوينيا محمد عبد الله فرماجو dadku way soo badanayaan taariikhdu way isqoraysaa anagu waan sugaynaa idinkuna wada daawanaysaan waayahay aan la socono sida wax u socdaan aan sugno waxaynu halkan kala kulanno iyo waqtigu sida uu noqdo daawadayaasha Dabarani Media waxa ay la soconayaan wax kasta marka ay dhacayaan Dabarani Media waxay soo gudbinaysaa wax kasta marka ay gudbinayaan waayahay war waa kuwan gabdhihii markii dhawaataan madaxweynaha taageerada u muujiyay waayo Dabarani waxay leeyahay waxa soo
وايا واكن أي وايا أي هلا ما أنت درانك يقلب قياس كرام عاب فرماجة هالكان سيستاغي شنو هنا كلام حسين لكن فرماجة حسين يديك بقى الجواج وايا وانا أسواقي روتي ورحمة الله وبركاته أنا أبا وأنت عافماتك حاجة عبدي وحق فرح سناينا نتكسر قد قموسة وأنت مدحوين فرماجة مدن عبد الله محمد فرماجة هنا هذا وايا أنتم ما ستين أي كلب قصده أي حالنا سود ونقوالي ومدنا كرونا حنولا فرماجيو madaxweyne farmaajo ayaa la sugayaa madaxweynaha Soomaaliya oo markii labaad imanaya Garowe isagoo madaxweynaha taariikh kale ayuu samaynayaa maanta halkan ayaan ku sugaynaa idinkuna waa daawanaysaan waxaan soo gudbino dadweynaha reer Garowe madaxweynaha soo dhoofin oo Muqdisho ka soo dhoofinayay isu soo baxeen magac kale samaynayaan wax kale inoo sheegayaan taariikh bay ina barayaan wax kasta inoo sheegayaan dad badan baa halkan jooga oo madaxda maamul goboleedada oo dhamaantood ka qayb galaya soo dhaweynta madaxweynaha maqaam sare ayay rabaan inay ku soo dhaweeyaan iyagana waan ka sugaynaa hore wuxuu u yimi isagoo hogaaminaya safarkii nabadda maantana wuxuu imanayaa isagoo isku imanaya meel Soomaaliya oo dhan ay joogto oo ka qayb galaya cali masaarka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waaya walaad ciyaartan aan daawano واي هذا كعلي ولا كان قصو كعلي هو ما كان قصو ورانا ساو كلا دركده كربا كي قوناي عاقد تاغي انا دربي وانا صار
waayahay ciyaaraha dhaqanka ayaa socda ilaa iyo haatan lagu soo dhaweynaya madaxweynaha soo dhaweynta qaybta kale aan aadno bal waayahay soo dhaweynta qaybteeda kale ciyaar bambayda aan eegno waayahay qaybtii kale ayaan soo dhaweynta ka qayb galaynaa oo dabaaldega ay sameynayaan ciidamada Puntland cutubya ka tirsan ciidamada Puntland ayaa salaan sharaf halkan isu diyaarinaya si ay u siiyaan madaxweynaha Soomaaliya taariikh kale ayay sameynayaan reer Puntland wax kale ayayna tusayaan reer Garowe waa arkaynaa sida ay wax u socdaan waaya Soomaaliya ee quruxda badan ayuu askarigan wadaa cutubya ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ka dambeeya oo salaanta qaadanaya salaan sharaf ayay sameynayaan reer Puntland ciidamada Puntland ayaa hadda soo bandhigaya gaata ka ciyaar waxay marayaan qaybaha kala duwan ee garoonka diyaaradaha ee Garowe kooxda bambayda ayaa hogaaminaysa oo dad badan ay hareeraha ka socdaan wax kale ayay inoo sheegi doonaan iyo isbedelada halkan ka dhacaya iyo sida ay u soo midoobayaan dadka Soomaaliyeed ciidamadu way istaageen salaan sharafta ayay bixinayaan والاستاج عالم كينا الصومالية عالم كينا هنا مذيع عالم كينا شرطة كده قاضي وايه تاريخ هاي دعوي كدعية يا نجوجنا ما أنت هالكن سيان سوق بينه وروح ذا يقاب كي هناك الدولة نمية هالكن كشرا من ماذا الصومالية دي سود وين تيجي مرحبا ذا إذا ما ضاي صوب بندقيان قالتك عيار كهالكن وايه وهي عضيني سا دي بصون ولا شهادة الصومالية Garowe waxa wada jooga madaxda maamul goboleedada oo dhan waxayna ay sugayaan madaxweynahooda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii labaad imanaya Puntland oo mar kale taariikh sameynaya oo mar kale magac inoo qoraya waxaan sugaynaa waxa halkan ka soo bandhigaan cutubya ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee Puntland ayaa halkan gaartay ciyaar ku soo bandhigaya oo ay hogaaminayaan kooxda bambayda oo dadku jacayl u qabaan qaydeenimada iyo wadaninimada ee hareeraha ka marayaan annaguna aan soo gudbinayno idinkuna aad daawanaysaa waaya balaan eegno calankeena quruxda badan ee Soomaaliyeed calankeena shanta xidigood leh calankeena qof walba calankeena qof kasta calankeena meel kasta waayahay reer Puntland waa mahadsantihiin waxaan noo sheegteen waa mahadsantihiin reer Garowe waxaana barteen aad iyo aad baan idiga mahad celinayna waaya ciidamadu waxay diyaar garoobayaan astaanta qaranka la qaraacaya iyadoo madaxweynuhu uusan soo duulin diyaar garowgii ugu dambeeyay ee madaxweynaha Soomaaliya soo dhaweyntiisa ayaa lagu jiraa maalin taariikhi ayaa ka socota Garowe wax taariikhi ayaa ka socda garoonka diyaaradaha ee Garowe wax kale ayayna barayaan maanta maxay noo sheegi doonaan maxaan soo gudbin doonaa maxaa daawan doontaa
calanka ayaan ka agdhowahay calanka ayaan wax yar u jiraa calanka askari ayaa wada ciidamada ka dambeeyaan ciidamada Bambeyda ee gaadka ciyaarka ee Puntland kooxaha u tagtay ciidamada Puntland ee ciidamada ciyaarka Puntland ayaa halkan maraya hanaanka iyo qaabka shaqo waayahay kooxda Bambeyda ayaa socota halkan waxaan fiirinaynaa sida ay wax u socdaan waayahay waan idin maqalnay waayahay waan idin aragnay haye ciidamada Puntland ee Soomaaliyeed ayaa halka soo bandhigaya gaadka ciyaarkii ugu dambeeyay ee ugu diyaar garoobayaan soo dhaweynta madaxweynahooda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo weli way socotaa taariikhdu weli way isqoraysaa Bambeydu way socotaa dadkuna way daawanayaan waayahay waa idin maqalnay waayahay waa idin aragnay aan sugno waxa ku xigi doona aan sugno waxa gabeer aragno bal meesha ay wax tagayaan iyo dadku sida isugu yimaadeen maalin kale oo taariikhi ayaa halkan ka socota maalin kale oo qurux badan ayaan arkaynaa maalin kale ayaan halkan ka soo gudbinaynaa waxa dhacaya qarannimada iyo wadanida dadka Soomaaliyeed waa mid sii fogaanaysa dadku waa kuwa isu soo dhawaanaya dadku waa kuwa isfahmaya Soomaaliya waa mid dib madoobaysa Soomaaliya waa mid mar kale kaligeed noqonaysa waayahay waa idin aragna waa idin maqalnay waa idin daawanay waa idin la joognaa waana gudbinaynaa waxa halkan ka dhacaya aad baa mahadsantiin gaadka ciyaarka ciidamada Puntland ay sameynayaan oo isu diyaarinaya soo dhaweynta madaxweynahooda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa halkan ka socota madaxweynaha oo Muqdisho ka soo dhoofinayay magaalada isugu soo baxeen reer Puntland madaxweynaha aan wali soo dhoofinayay isu soo baxeen ciidamada gaadka ciyaarka ciyaaraya madaxweynaha oo wali iman ayaa ka u yar iyo ka u weyn halkan lagu arkaa dhammaantood waa qiiraysan yihiin dhammaantood waxay rabaan inay ka wada qayb galaan maalinta taariikhiga ah soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo waxay kaga duwan tahay tii sanadkii hore wuxuu imanayaa iyadoo joogaan madaxda maamul goboleedyada oo dhan halkan wuxuu imanayaa isugu imanaya halkan iyadoo madaxda ama madax maamulada dalka oo dhan halkan wada joogaan halkaas oo isagu uu gudoomiye u yahay madaxweynaha Soomaaliya ee guud calanka ayaan ka agdhowaanayaa calanka ayaan jecelahay calanka ayaa jecel waayahay reer Garowe waa idin aragnay waa idin maqalnay reer Puntland waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin Bambeyda ciidamadu meeshooda ayay ku laabanayaan gaadka ciyaarkii ugu dambeeyay halkan ay ku sameynayaan gabdhaha iyo wiilashu waa ka hadhi laayihiin dhalinyaradu waa ka dheegagi laayihiin dadkuna way daawanayaan aan daawana sida ay wax u socdaan aan daawana meesha ayna geeyaan aan daawana waxaan arkayno maanta halkan aan ku arkayno ma jirto maalin uga dhow dadka Soomaaliyeed inay mid yihiin ma jirto maalin uga dhow dadka Soomaaliya inay muujinayso inay soo laabteen ma jirto dadka Soomaaliyeed inay maalin inoo sheegayaan inay hal qof oo kaliya yihiin waxaan maqalnay waxaan aragnay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waayahay reer Garowe waayahay reer Puntland waayahay Soomaaliya waayahay ciidankeenna waayahay qarankeena waayahay madaxweynaheena waayahay qof walba على مسارك مدحوينها Puntland سعيد عبد الله دني iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waa mid taariikhi markii uu miday Soomaaliya oo dhan calanka ayaan ka agdhowaanaya calanka ayaa jecel calanka ayaan jecelahay calanka ayaan leeyahay calanka ayaa aniga ilaahay calanka ayaan wada leeyahay waayahay ciidamadeena waayahay Soomaalinimadan isteen aad oo mahadsantiin waayahay ciidamadeena waayahay qarankeena waayahay Soomaalinimadan isteen aad iyo aad baa u mahadsantiin wax badan baan madadaaliseen wax badan baan mashquuliseen wax badan baan noo sheegteen waxa ayna nahay waxaan noo sheegteen meesha aanu ka nimi iyo meesha aan ku socono waxaan noo sheegteen qofka aanu nahay iyo qofka aanu moodayna inaanu nahay waxaan noo sheegteen cidda ay Soomaalidu tahay sida u midoobayso ciidamada gaadka ciyaarka ee Puntland waxay halkan soo bandhigayaan gaadka ciyaarkii ugu dambeeyay ee diyaar garowga madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saacada ayaa ka harsan intuu soo dhoofi lahaa laakiin Garowe way diyaar garowday Garowe way hadashay Garowe isu soo baxday waayahay idin maqalna idin asmacna idin dhageysanna idin aragna waayahay ciidamada ayaa meelaha u dambeysay ku jira calankii Soomaaliyeed ayaa halkan ka arka oo ka babanaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo weli ma soo dhoofin laakiin ciidamadu diyaar garowga ugu dambeeyay ayay ku jiraan waxayna tuseen qaabka sare iyo hanaanka quruxda badan ee u soo dhaweynayaan madaxweynahooda Soomaaliya waayahay waan idin aragna waayahay waa idin maqalnay waa mahadsantihiin sida aan noo madadaaliseen waa mahadsantihiin sida aad Soomaalinimada noo xasuusiseen waa mahadsantihiin sida aan suuka ay soo dhaweyseen waa mahadsantihiin sida aan madaxweynihiina u jeceshihiin waa mahadsantihiin sida qof walba oo halkan u jooga oo uga qayb galaya maalinta taariikhiga ah idinka daawanayana waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idin la socodsiinaynaa waxa halkan ka dhacaya maalmaha taariikhiga ah iyo taariikhda halkan dhacaysa saraakiisha ciidamada Soomaaliyeed ee halkan jooga ayaa soo bandhigaya qaybaha kala duwan ee cutubiyada ciidamada waxay soo bandhigeen ciidamada qaybahooda kala duwan oo magaalada meel kasta lagu arkayo kuwaas oo u diyaar garoobaya heeganna ugu jira soo dhaweynta maalinta taariikhiga ah
puntland way hadlaysaa maanta puntland waynu maqlaynaa maanta puntland waa daawanaysaan anigana waa tabinaynaa wax walbo halkan ka dhacayana waan jecelnahay inaad nala wadaagtaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin reer puntland taariikh kale ayay inoo sheegayaan maanta waxa halkan ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ciidamada qalabka sida diyaar garowgii ugu dambeeyay ciidamada Soomaaliyeed caalanka Soomaaliya oo babanaya caalanka puntland ku lamaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waayahay waa idin maqalnay waayahay waa idin aragnay haweenku door lixaad ayay ka qaadanayaan ciidamada iyo sida ay wax u socdaan wadaniyadu maalinta maalin uga dhowdahay ma jirto Soomaalidu maanta maalin ay isaga dhowdahay ma jirto madaxdu maanta maalin ay isaga dhowdahay ma jirto maanta maalin ay isaga dhowdahay ma jirto aad baa u mahadsantihiin dadkaygu aad baan idin jecelahay dadkaygu aad baan isu jecelahay dadkaygu talaashiisha ciidamada puntland ee ka qayb galaya ciidamada iyo qaybaha dabaaldegooda aad bay u soo gudbinayaan sida waxa halkan u dhacayaan warbaahintu kama maqna qayb dhaxal ay qaadanayaan annaguna waan daawanaynaa annaguna wala soconnaa goordhow waxa imanaysa diyaaradda hogaaminaysa uu wado madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed hore waxa uu joogay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hore waxa uu joogay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin SBC ayaa halkan ka qayb qaadanaysa SBC ayaa dad wareysanaysa SBC ayaa dad soo gudbinaysa waayahay maxaa saarax ka tirsan ciidanka isku dhafka aan taliyo wahay